gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa daafuray ololihii ugu horeeyay ee lagu buufinaya sunta ka hortagga faafinta cudurka COVID-19 oo si adag u saameeyay caalamka. Booyada sida sunta looga hortago cudurka faafa ee coronavirus ayaa lagu buufinayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, gaar ahaan wadooyinka ugu muhiimsan ee caasimadda. waxaan ololahani daafurkiisa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir. Ololahani ayaa noqon doona mid sii socon doona xilliyada uu bandowga ka jiro magaalada Muqdisho si looga hortago caabuqa coronavirus sida uu sheegay agaasimaha caafimaadka dowladda hoose Xamar. Sida wada ogsoonaa waxaa jiro coronavirus oo adduunyada dhibaato badan ku hayo. Waxyaabaha ugu badan oo looga hortagi karo oo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ee wadaan waxa waaye in la yareeyo faafitaanka cudurkan. qayb kamid ah yareynta faafitaankiisa ayaa waxaa kamid ah in la isticmaalo disinfections amba waxyaabaha loo yaqaano antivirus. anagoo ka duulayna marka preventionkaas ayaa caawa waxaan bilownay inaan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ugu waaweyn iyo suuqyada waaweyn inaan ka bilowno inaan buufino. ujeedka buufinteena waxay tahay marka inaan burburino fiditaanka coronavirus ama viruskaas fiditaankiisa kaas ogna dhibaatada nagu hayo. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha guddiga wacyigelinta ka hortagga COVID-19 ee dowladda hoose Xamar ayaa ka hadashay dadaalada socda ee looga hortagayo coronavirus. inaan dhameystiri doono magaalada Muqdisho oo dhan meel walbo inaan gaari doono suuqyadeedii meelaha ganacsiga oo dhan waxaan rabnaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay sidaas ula socdaan ee qayb weyn ee ka qaataan sababtoo ah cudurka COVID-19 wuxuu leeyahay ka hortag inaan ku dadaalno marka caafimaadka bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaan wax walba oo looga hortagi karana ee maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay cudurkaas sida looga hortagi karo haddii wacyigelin noqon lahayd. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in maamulkiisa uu la balaabi doono barnaamijyada kala duwan ee lagu xoojinayo ololaha wacyigelinta iyo sidoo kale ka hortagga cudurka COVID-19. adduunka waxaa saameeyay cudur safmareen ah oo la yiraahdo COVID-19. cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go'aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo buuxiyey jeermis dilayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan. caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha Allah taala. inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka COVID-19 ayuu socon doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.